December oo maalinta naafada adduunka Soomaaliyana waxay kamid tahay adduunyada kamid tahay walow aan isleenahay dadka naafada ee Soomaaliya inaysan helin waxa adduunyada ka jira waxaad ogtihiin Soomaaliya waxay saxiixday convention-ka caalamiga 2018 bishii October ilaa waqtiga hadda lagu jirana wax oo shaqo ah oo laga qabtay ma jiraan runtii aad bay u fiicnaan lahayd dawladda maxay tan markay wasaaradaha dhisaysay wasaarad u qaasa dadka baahiyaha gaarka qaba inay wasiir ugu magacowdo si uu ula socdo xaaladahooda maxay tan baahiyahoodan ugu turjumo dawladdan aad baan ugu hanweynayn waxaan islahayn wasaaraddaas waa dhisi doonaa laakiin ma dhicin waayo dadkani waa dadka ugu mudan bulshada Soomaaliyeed maanta toole in wax loo qabto oo loo istaago wax kasto anagu aan mudannahay ayay mudan yihiin wax kasto anagu aan rabno ayay rabaan hay-adihii howlahaas faraha ku haya markaan u tagnay ee la fadhiisanay aan wax su'aalnay waxay leeyihiin anaga dawlad baan la xiriiri karnaa qof shakhsi ah waxba uma qaban karno taasna waxaan u sheegaynaa aan u faraynaa dawladdeena Soomaaliyeed inay wax nagala qabato xuquuqda adduunka nooga maqan ayaa ka fara badan mid Soomaaliya ay siin leeyahay adduunyada meel badan baan xiriir la yeelanay Soomaaliya waa tii saxaabada ka maqnayd adduunka ka dhacday oo aan shirarkiya ka qayb geli jirin booskeedii la waayay meel badan oo adduunka Soomaaliya laga matali jiray naafadeeda yaa intaan ka qayb galay kuraasigii lagu fadhiyay nin maqnaana alla keenii yaraana alla kori haddaanu ka maqnayn waa nibada dhinac uga sikada waxaa idin sheegaa maanta waa maalinta naafada adduunka Soomaaliya maanta waxaa ku nool 2,800,000 oo qof oo Soomaali oo naafa ah oo kala nooc kasta ah waxaa idin sheegaynaa Soomaaliya naafadeedu waa baantay laakiin wax qabadkeeda sidii ninkii weeray uu sheegay waa la soo saxeexay maayna looguma talagelin wax laga qabto waxaan rajaynaynaa in maanta ka bacdi aan fariin cad diri doono xaaladaha naafada waxay soo martay 4 stage soo martay stage-kii ugu horeeyay waxay medical alligere وحلقي دجال كذي لبعض لقى بحي dadka naafada waxa loo aqoonsanaa dad daawo iyo daryeel noloshooda ku egtahay waa laga soo gudbay xilli waxa la yimid hadana in la yiraahdo charity model dagaalkii la markii laga soo baxay bacdana waxa loo soo gudbay hala kaalmeeyo hala caawiyo meesha lagu arkay dawladii reer galbeedka xataa isticmaalayeen in dadka loo qoondeeyo dhaqaale ay cunaan nolol iyo raashin loo qoondeeyo waa laga soo gudbay social model la yimid oo ah war dadkan way shaqaysan karaan dhaqaale badan inaan meel ku daray waxa ka fiican inaan shaqooyinkii iyo waxbarashadii ka qayb gelino oo dhahno aan xoogooda ka faa'iideysano meeshii aan milyan qofood aan daryeeli lahayn milyankaas qofood aan ku shaqaysano wax soo saaran waa laga soo gudbay hadeertaan ugu dambeys waxa la marayaa human right model oo ah in la wada sameeyaa madaxda shacabka naafada qaybaha kala duwan ee bulshada in la wada sameeyaa dadka naafada ah waxay tabayaan waa dhiirigelin iyo in wax loo qabto bas ah naafanimadu waa qalbiga haddii aad dadaashid waxaa aaminsanahay inaad wax qaban kartid si fiican ayadana u sii xoojinaynaa baaqa ah taabagelinka xeerka dadka baahiyaha gaarka qabo ee la meel marsiiyay inuu noqdo xeer taabagalay ee uusan noqonin qoraal la qoray la saxiixay meel la iska dhigay bahda jaamacadaha iyo bahda waxbarashada guud ahaan mar walba way garab istaagan yihiin dadka baahiyaha gaarka qabo jaamacad walba iyo iskuul walba waxaa joogo arday kamid ah ardayda baahiyaha gaarka qaba waa dabcan lagu sharfaa waa lagu qadariyaa waana lagu garab istaagaa sidoo mar walba ula sinaan lahaa ardayga kale ee asaga la midka ah wax baranayo saad hore u soo sheegteenbo waxaa naafa ah dadka ka jiran qalbiga ama dadka ka xanuunsan maskaxda naafa ma ahan dadka aragga la ama dadka maxaa la yiraahdaa lugaha la
ama dadka dhagolinta intaasba naafo ma aha waa la isku afgartay waxaan isku sheegaynaa maanta oo dhan waxaan idin wadaa marka inaad dadaalkiina iyo maxaa la yiraahdaa bulsho dhaxgalkiina aad meesha ka sii wadaan aadna aamintaan sad hadartaan u aaminsantihiin in naafadu ahayn muuqaalka jismiga ee ay tahay qalbiga naafadu Soomaaliya maxay soo martay naafadu Soomaaliya waxay soo martay berisamaad soo martay waddankaani markuu dumayay naafadu waxay lahayd laba institute ayay lahayd oo wax lagu baro naafada ayna seexdaan qaarna banaanka ka dhigan jireen qaarna waa seexan jireen ayagoo isugu jira noocyada kala duwan diinteenu wayna faraysaa inaynu horta number 1 isu naxariisano naxariista haddana waxaa ka sii dheeraad ah naxariista qofka baahida gaarka ah qaba in lagu taxadiyo waa xaaraan in la yeeso waa xaaraan in discrimination lagu sameeyo iyadana meesha ma banaano waa iyadana waa xaaraan waana dambiisaan aaminsanahay marka maanta anigoo magacii dawladda ku hadlaya aniga iyo waxaan maleynayaa walaashay senator Maryan baan dila joognaa waxa aan rabaa oo kaliya inaan 3 shay idinka ballan qaado number 1 waxaan rabaa inaan idin sheego intiinan meesha fadhiyo xildhibaankiina aniga ah إن شاء الله هدي حتى كهرن اللي داعي حلدبانكينا كان صدا أما مثلات ملهدين هدا بوشجع سنة مريم فارح كهيا أي حلدبان إدي إنتي نوا